colaadu ahayd mid u dhaxaysay beelaha Isaaqa dhexdhexaadinta beelaha aan Isaaqa ahayn ayaa noqotay mid daruuri ah arrintanna waxay xoojisay dareenkii qarannimada ee beelaha Somaliland inkastoo ay labada colaadood baselka ku hayeen faraqa iyo kala fogaanshaha qaybaha SNM-ta haddana berbera waxa ka soo shaacbaxaysay loolan xooggan oo ku salaysnaa maamulka hantida guud iyo ilaha dakhliga dawladdu waxay u muuqatay mid aan awoodin inay xadido xiisadan sii kacaysay bililiqada dilka iyo rabshadaha ayaa noqday kuwa ku baahsan dalka oo dhan baahida ugu weyn waxay dawlad law and order baahida ugu weyn waxay in la dhiso dawlad ilaalisa oo gacanta ku qabata sharciga iyo xadgudubyada ka dhacayay dariiqyada iyo magaalooyinka oo niman dayde lagu magacaabay oo helay qoryo oo aan ujeedo kale lahayn inay dadka boobaan mooyaane ayaa dariiqyadiina looga cagay magaalooyinkiina looga cagay xal-la'aanta awgeed waxaa la isku raacay in la gaaray baahidii ugu weynayd ee ahayd in odayaashu dhexdhexaadiyaan qaybaha awoodda isku hayay iyo dawladda iyo mucaaridkeeda waa beel soo dagaalantay iyada beesha dhexdeedii dabadda ka timi ayaa qardabadu ka dhacday labadii baallaa kama dhicin qardabadiibaa baarlamankii la dhisay iyo wasaaradii cabdiraxmaan axmed cali la wadi kari waayey cabdiraxmaan axmed cali baa odayaasheedii loo yeedhay oo sheekh ibraahim u jeermaani oo beeluu ku dhan yihin tii sayid gobolka saylac iyo tii laascaanood iyo tii ceerigaabo aan qorana ka maqnay wuxuu yidhi iga qabta taladii idinku la wareega baarlamankana ii soo fadhiisan waaya wasaaradiina ma hayo ka taliya waa ka degaya ka degin baanu waa kula haynaynaa iyagoo awood loo siiyey kana faa'iidaystay deganaansho muddo ku koobnayd odayaashu waxay bilaabeen dadaal ay ku hirgelinayaan kulamo taxana ahaa oo lagu soo afjaray shirkii sheekh ee tawfiiq wixii hayay waxay noqdeen dadkii Isaaqa ahaa kolka dabeeto niman Isaaq ahayn baa kalsoonidii helay oo kolka qoladana maaha isagu horta dhexdhexaadintoodu say ku hirgashay ilaahay khayr ha siiyo hawl wanaagsanna way qabteen waxay ahayd dhexdhexaada ay yihiin ayaa suurtagelisay isla waqtiga beelihii sanaag waxay ku guda jireen shirar hooseedyo istaba joog ahaa sababtoo ahayd taariikhdii adkayd ee soo dhex martay beelaha waxay isku afkarteen inay u kulmaan laba reer halkaasoo ay ku xalliyaan khilaafaadka iyo wixii aanooyin ahaa ee u dhexeeyey labadii beeloodba ta aasaaska u ahayd markaa nabadgelyada iyo shirka miladhalkiisaba waxa weeye iyada oo muddada 2 sannadood ahayd 1990kii ilaa 1993kii inta la soo la figurayay oo laba reer oo waliba laba jirib oo waliba wixii ay kala tabanayeen wixii inta la soo daweynayay oo inta shirarka hore lagu soo la figurayay kaalinta haweenku qayb lixaad leh ayay ka qaadatay geedi socodkii nabadda iyo qaran dhisidda Somaliland sanaag haweenku colaadu markay dhacday waxay sameyn jireen dadka waxay u kala qaadi jireen wararka nabadda oo kale in geedaa la wada daaqo oo la isku soo duulin in biyaa la wada cabo markii dagaalku soconayay yani xaqiiqdii kaalin aad u weyn waxa qaatay haweenka labada reer oo kala yare durugsan midna ka dhalatay midna u dhaxday oo de reerna reerkoodii buu ahayo way ka dhalatay reerna reerkoodii buu ahayo way u dhaxday marka dumarka fariinta kala qaadana iyagay ahaayeen ilaa la isu soo galay oo maxay ahayd la isu yimi haweenku baad warka telefoon la isu dirana ma jirin taar la isu dirana ma jirin haweenku baa warka kala qaadi jiray oo iyagu baaba dhanbaa lahaa horta waa ta koowaad dumarka had iyo jeer waa kuwa nabadda jecel iyagu marnaba aan jeclayn in dagaal dhaco haddii se ay dhacdo oo dagaal ku dhaco waa dadka ugu faraha badan ee ay dagaalku saameeyo iyagu dumarku sidoodaba de qabiil male gabadhu reer bay ka dhalataa haddana waxa guursada reer kale
marka labadii reer hadday islaayaan waxay iska hor imanayeen ninkeedii iyo aabaheed walaalkeed inankeedii kay eedada u ahayd adigu dee labadii family midna ka dhalatay midna u dhaxla iska hor imanaya deedna iyadu dee dhan walba dee waata u jabaysa ee dhankana inankeedu ku dhimanaya dhankan walaalkeed ku dhimanayo laakiin shirkii tawfiiq ee magaalada sheekh ayaa ahaa shirkii ay haweenku doorkoodii ugu firfircoonaa ka muujiyeen shirkana wuxuu ahaa mid ay haweenku markii ugu horreysay si muuqata u hantaan saamiga codkooda waxay ula muuqatay dadka dadweynaha inuu dheeraaday dabeedna si ay taa loo soo afjaro ayay dumarku waxay soo abaabuleen qoraalina way soo diyaariyeen waxaanay soo abaabuleen mudaharaad ay hortaageen meesha iyadeen maanta haddaan la saxiixin ma ka dhaqaaqayno meesha alxamdulilah ayaantaa waana loo ogolaaday inay gudaha fadhiistaan inay dhegaystaan inay warqadoodii dhiibtaan inay saxeexii la saxiixayay diyaar waa haddaanay u taagnaadaan inaanu qaadanay nabad xabad joojin iyo nabad buuraa yaa wallaahi horta wuxuu way kala horreeyeen oo waqtina wuxuu bilowbi ahaayeen wax cusub u ahaa waqtina waxay ahayd waqtigii dadku isu soo galay oo muddo la wada joogay oo wax la wada cunay oo la wada seexday marka shirka sheekho kale wuxuu ahaa waqtiyo yani xaqiiqdii la soo yara dhex galay inkastana anigu ka qayb qaadan laakiin haweenku door bay ku lahaayeen sida sheekada ku hayo way ka qayb qaateen xagga wax qabadka iyo shaqada iyo dhaqaalaha iyo maxay ahayd dhamaana way ka qayb qaateen si fiican bay uga qayb qaateen aakhirkii shirkii tawfiiq wuxuu si wanaagsan u suurtageliyey in colaadihii burco iyo berbere la soo afjaro laakiin xasiloonidii heer qaraneed waxay ahayd mid weli aad u tamar daran waxay odayaashii halkaa jooga isla garteen waxaani burcu ka dhacay haddana barbaru ka dhacay muddo yarbaa kolba u dhaxaysa waxaani inaanu inaga joogsanaynin haddii aynaan dhisanin nidaam adag oo beelaha lagu kontaroolo haddii aynaan dhisan waxaanu garannay shir degdega in la qabto maadaama qoladii snmna madaxdeedii labadii sannadood iyadana bilo yar ay ka hadhay in sheekh lagu go'aamiyo mu'tamar weyn oo ballaadhan in la qabto si arrinkan loo hirgeliyo ergooyin tiradoodu gaadhayso ilaa 500 oo qof ayaa isugu yimi Boorame iyagoo marti u ahaa reer Awdal waxay odayadii halkii joogay u arkeen meesha kaliya ee beesheedii isku duuban tahay ee shir uu ku qabsoomi karaay inay tahay degmada Boorama gobolka Awdal inay tahay waan soo dhaweyn arrintii oo waxaanu nidhi annagu guul bay noo tahay oo sharaf bay noo tahay ummadda Soomaaliland intay doontaba haleekaatee intay ku timaadaba dad u jilbi dhigi kara ayaanu nahay martigelintooda gogol u dhigooda dadka iyaguna diyaar buu yahay annaguna ummad qaadi karta ayaanu shirkii Boorame wuxuu ku salaysnaa habbeeleed ujeedadiisuna waxay ahayd in lagu xalliyo arrimo muhiim ah oo ay ugu weyneyd ayo ka tashiga mustaqbalka Soomaaliland halkani waa halkii shirka Boorama lagu qabtay howlkan 1993 shirkii intaag la yiri Soomaaliland halka lagu sameeyay as a state waxaa jiray doodo fara badan oo la xidhiidhay micnaha uu xambaarsanaa mustaqbalkani laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu wada heshiiyey in la samaysto ahdi nabadeed ka hor intaanay dooddu u gudbin qaababka ugu habboon ee dhisidda ahdi qarameed dhowr qaab oo la xidhiidha nidaam dawladeedka ayay soo bandhigeen ka qaybgalayaasha shirku wadaxaajoodkuna wuxuu ahaa mid aad u kulul 15 casho isla maqnaayo waxay yidhaaheen saddex baanu soo kala noqday qolo waxay soo dhistay kolkan kuu soo dhoweeyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen qolona waxay soo dhistay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare qolona waxay soo dhistay 5 nin oo guddoomiye oo madaxweyne 5 nin oo shantaa nin maxay noqonayaan baanu nidhi ninba bil buu haynay waxaanu nidhi isku noqda ayaanteeda isku noqda isniinteeda la kaalaya ismari waa dheer kadib waxay wadaxaajood iyo loolan siyaasadeed suurtageliyeen in lagu heshiiyo nidaam ka kooban
madaxweyne awood badan oo leh gole wasiiro ah iyo baarlamaan. heshiiskan wuxuu u gogol xaadhay doorasho taariikhi ah oo lagu doortay madaxweyne maxamed ibraahim cigaal iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii cabdiraxmaan oo cali faarax. waxaa kaloo la isla meel dhigay dhisidda baarlamaan ka kooban 2 qaybood oo golo hoose iyo mid saraba leh. isla xilliga geedi socodkii nabadaynta beelaha Sanaag ayaa soo gabagaboobay kadib 2 sannadood oo ay socdeen shirar taxane ahaa. beelihii Isaaq iyo kuwii Harti waxay isugu yimaadeen Ceerigaabo. boorama markii la isugu wada yimid beelaha Soomaaliland